xukunkan oo ka dhacay xarunta maxkamadda gobolka Maroodi Sheekh ayaa lagu dhageystay dacwadan oo ka dhan ah 5 eedeysane iyo 2 gaari oo lagu soo qariyay Chad ay gudida ka hortagga xanuunka coronavirus ay dalka hore uga mamnuuceen garsooraha maxkamadda gobolka Maroodi Sheekh Cabdisalaan Sheekh Xasan Axmed oo ku dhawaaqay xukunka eedeysanayaasha ayaa sheegay in dawladdu la wareegtay 2 gaari oo kala ah Land Cruiser taarikadiisu tahay Z246 eber iyo gaari nooca loo yaqaano dameer qadiye oo taarikadiisu tahay 6144 maanta waxa halkan la keenay 5 qof afar qof ay ku cadaatay dambigii ahaa inay si qaad soo galiyeen dalka maandooriyaha la mamnuucay ee qaadka maxkamaddu way xukuntay xukunsanayaashii waxaana ku xukuntay min 3 sano iyo 6 bilood oo xariiq ciqaabeeda iyo 3 milyan oo ganaax maaliyadeed ninkii afraad ee ay ku cadaan weyday eeduna maxkamaddu xoriyadiisa u celisay sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay badeecadii ay sideen oo ahayd maandooriyihii qaadka oo la gubay waxa kale oo maxkamaddu kala wareegtay gaadiidkii ay ku sideen qaadka ay wadanka ku soo galiyeen oo kala ha gaari Land Cruiser iyo gaari dameer qadiye nooca loo yaqaana maadaama ay tahay wax la mamnuucay oo sababta loo mamnuucay ay tahay ka hortag laga hortagayo iyo dadaal qaranku uu ka sameeyo caabuqan dunida dhan la tacaalayso waa wax xaraantinimada wixii ka dambeeyay wareegtaa wixii ka dambeeyay cid kasto oo talaabada qaado oo u hogaansami wada awaamirta qarankana sharciga marka la hor keeno wixii ku cadaada ciqaabtiisa la marinaya imkan waxaan ku wareejinayaa gaadiidkii ciidanka bilayska taliyaha saldhigga gacan libaax si uu ula wareego waxa isaguna halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyaha gobolka Maroodi Sheekh Cabdifataax Yuusuf Cali waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan maxkamadda hor keenay 5 eedeysanayaal oo aan ku soo eedeynay in ay ka hor yimaadeen awaamirtii gudida heer qaran ee ka hortagga xanuunka COVID-19 shantii eedeysana waxay wateen 2 baabuur oo mid Land Cruiser yahay midna dameer qadiyay waxaana ku wateen 14 baag iyo qayb kamid ah caqaar loo yaqaano kuwa yaryara waxaana ka soo galiyeen dowladka magaalada Hargeysa waxa lagu xukumay eedeysanayaashii dambiilayaal ka noqday 3 sano iyo 3 milyan midkiiba oo ganaax ciqaabeed go'aanka ay maxkamaddu maanta ka soo saartoon ku qanacnay ugu dambeyntiina taliyaha saldhigga gacan libaax gaashaanle Khadar Faarax Cumar waxa uu sheegay waxaan maxkamadda iyo xeeraanta hor keenay 2 gaari iyo 5 eedeysana 2 gaari oo kala ahaa gaari Land Cruiser iyo gaari dameer qadiya iyo 5 eedeysana eedeysanayaasha iyo gaadiidka waxa lagu soo eedeeyay inay sideen oo ka ganacsanayeen qaadka tarabaana qaadkaas oo la mamnuucay sababta loo mamnuucayna waxay ahayd ka hortagii coronavirus-ka waxay maxkamaddu ku xukuntay waajibaad wixii ay lahaayeen waanu ku qanacnay bilis ahaan waxaanu la wareegnay oo garsooruhu igu soo wareejiyay 2 gaari furayaashoodii taasoo aan ku wareejin doono waxa weeye biliskii iyo sii sareeyay haddii alla ka dhigo